طريقة جوج عدان سميسانينا anagu طريقة ay laascaanood martay yaan maraynaa iyaga isaga la weydiinaya xisbiyada mucaaradka. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناسب سؤال هذا مركز لي برنامج كان بتاع القيبتن waxaynu ku eegi doonaa waxa muran siyaasadeed oo xooggan sanadadan soo jiray uu ka taagan yahay doorashooyinka Soomaaliland bal waxaynu eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Soomaaliland iyo muranka ku gadaaman ayaynu eegi doonaa waxa ay la jooga saaxiibka Jaacab ma sha Allah Soomaaliland way dambe waad baa hadlaysay gaar ahaan marka gooja cadiya la saarad laga hadlay maanta doorashooyinkii baa la isku haystaa xisbiyadii mucaaradka iyo xukuumaddii madaxweyne Muuse xay kala maraya. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم قبض الصوماليات ملك استيشوا محلي السلام الله عليكم إن هرجيسة هذا وحول مقتل جوش عندك هلا يا جوش عندك هلا هي مقتل هذا هرجيسة هاي إنه عرفت جوابتي نقول لحي إلا سكر ده جوابتي نقول لحي يلا جرنا هنا إن قد جت دور شوينك سوماليلاند أيام مالين كهور waxa uu warqad u diray maxkamadda sare ee Soomaaliland guddigu waxay sheegeen inay garan la yihiin doorashada ay qabanayaan ama ay iloobeen doorashadii ay ahayd inay qabtaan sidaa daraadeed in ku soo celi inta xataa ya guddiga doorashada Soomaaliland waxay iloobeen doorashada ay qaban lahaayeen iyo garan waayeen ma saamo oran karee marka maxkamadda maxay ka codsadeen maxkamadda sare marka u diroonay ka dalbadeen inay u soo sheegto doorashada ay qabanayaan iyaga wixii loo diray maxaa way garan waayeen aniga nafta kuma garanayo macnaha ma doorashada ururada iyo tii madaxtooyada midda horeynaysa iyo kala garan waayeen doorashada ay qabanayaan bay garan waayeen iyo doorashada maaragtay laga sugaya in la qabto midda ay tahay bay garan waayeen waa saa bisan marka doorashadii ayay hadda waxay ka dalbadeen in maxkamadda sare ee Soomaaliland ay u soo sheegto doorashada ay qabanayaan midda ay tahay wakaas saarto u soo fikirku hay noo dambeeyo ma waa sida ay tahay ma xogtaan dadka siin noor ma waa guddiga doorashada Soomaaliland ayaa maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u qoreen dalab ay kaga dalbanayaan inay u soo sheegto maxkamaddu doorashada la qabanayo midda ay tahay maadaama aysan garanaynin هاي انت ما فاهم هاي محكمة العدل محكمة ولا سوقينا محكمة ولا سوقينا فيري مركب waxa la isku hayo wuxuu ahaa doorashada waa la kala qaban iyo waa la wada qaban iyo waa tana horreyn waynu ognahay oo xogta aynu haynaa rasmiga ah waxa weeye xisbiyada mucaaradku laba option bay ogol yihiin in doorashada la kala qabto oo madaxtooyada horeysa waa ogol yihiin in la isku qabtana waa ogol yihiin موسى هل بوغوليا هي حكومتيسو ان doorashada la kala qabto tawraduna ay horeyso oo madaxtooyada dambayso halka markay taagan tahay muxuu yahay wax u dhaxeeya la isku hayo waa waxay guddiga doorashada ku wareereen saaga guddiga doorashadu hadda ka hor yay u gudbiyeen maxaan ku idhahdaa to maxkamadda sare doorashada la qabanayo maxkamadda sare waxay caddaysay oo ay soo saartay in maxaan ku idhahdaa to la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyada ay ku kala baxayeen Soomaaliya gara baarlamaanka gaashaanka u dhuftay baarlamaankii waa wuxuu soo saaray maxaan ku idhahdaa in la wada qabto doorasho is saaran baarlamaankii markii loo gudbiyey waa tii hirig la geliyey waa tii madaxweyne Muuse diiday inuu saxiixay uu soo celiyey aqalka odayaashu uu soo celiyey ay soo celiyeen guddiga doorashada wayaa ku dhawaaqay inay muddo 9 bilooda ku qabanayaan doorashadii madaxtooyada muddo 9 bilooda karti inay u leeyihiin inay qabtaan waxay soo gurguratay iyo wax kolba meel la soo maraba intii hadda kaar qaybinta aan la gelin maalmihii ka horeysay halkan inaan ka sheegnay waan u malayn Muuse wuxuu u yeeray guddiga doorashada wuxuu weydiiyay doorashada ay qabanayaan ee hadda kaararka la bixinayo doorashada la rabo in lagu galo lagu codeeyo inuu ka xaqiiqsado waxna u sheego wuxuu yiri bal aan iswaraysan waa la iswaraystay aragtidiisu u sheegay ayagana waxay yiraahdeen doorashada madaxtooyada
iyo doorashada ururada waa laba doorasho midna xeer iyo sharci iyo nidaam lagu galay leedahay midna wax lagu gala male doorashada xeerka iyo nidaamka lagu gala leh yaan qaban karnaa oo aata madaxtooyada tii ururada lagu galayay doorashada ururada sharci loo cuskado noocu dooniba ha noqdee ama dastuuri ha ahaado oo qodobo dastuuri oo loo cuskanayo ha lahaadaan ama ha ahaadaan xeer baarlamaanku uu soo saaray oo laisla ogol yahay wax sharci ah oo lagu geedigeliyo doorashadan habka ay u dhacayso iyo qaabka ay noqonayso iyo sida loo kala guulaysanayo marka laga yimaado xisaabta boqoleyda ah ee xisbiyada laysugu dhudhufanayo ururada maxaanku idhahdaa xubnahooda markii taa laga yimaado ma jira yidhahdeen xeer qaban muuse waa adab darantihiin buuri mar dambana idinkama maqli karo annaga waxay yidhahdeen ma hayno hadde maxaan u cuskanaa horta bal kaararka qaatuu yidhi soo qaybiya kaararka kaararkii bay soo qaybiyeen kaararkii markay soo qaybiyeenna maxaanku idhahdaa to aadan xaaji cali buu yidhi aadan warqad u dira aadan xaaji calina waa isaga maxaad ka wada aadan xaaji cali isaga waa isaga gudoomiyaha maxkamadda ma waa isaga muuse weli somaa gara halkaas may taagan tahay warqadii aadan xaaji cali baa laga soo aadan xaaji calina waa muuse ما الحاج على المسمى هذا الحاج على وين وهذه شكل لغه ku kala socdaan ku kala duwan yihiin maxay kala faa'iido taas waa laba nooc kala duwan waxaad sheegtaa ururadu maxay jireen markaa arinta ururadu way soo dhaweeyeen qaarkood Dr. Gabose ninkii uu horeeyay soo tuuru ahaa warqada waa ku gowracanahay waa aqbalaynaa xisbiyadii mucaaradka ahaana mowqif adag bay iyaguna ka istaageen marka موسى مينو كو اسي هرغيسا مينا ديو هرغيسا كو اسي اسو وا قرحين لا يحيى ادن حاج علي بو قرح وكا هذا نبر marka nooca uu qarxiyo iyo heerka qarxeed gaar ah keenay way kasa firi Gabose iyo ururadan hadda ay tartanka galaan raba inta xaq iga dhigto labadii xisbi mucaarad maxay dhaheen labada xisbi mucaarad labadaba way ka hadleen gudoomiyaha xisbiga uu cid أنا مشرح مدحويني إسلا حزب قوي إنجنير فيصل علي ورعد شايت حولها على بي بي سي هي بي بي سي ده بقول هذا وحوي طريقة جوش عدن سوي سنة نعمله طريقة إلاس عمود مرتين يعني مرين يا سير لو يديني هذا حسبي ده معارض حسبي ده حسبي بلاد حسبي ده بيشك الحجز أي سمعنا كده haddii marka annaga saan rabna la yeeli waayo annagana saan rabnaan yeelaynaa annaga yeelayna saan rabna muuse somaliland naf xun baa ku jirtay buu oo yar intaa yarta ah ha israacin aadan xaaji cali fariinta u dira naf xun oo sii warraqle oo muuse wuxuu yidhi kalxamihii buu keenay intaa yarta adigu sabab u noqon waa gartay ninkaasi wuxuu ama cirana si cad buu yidhi wax allaaliyo waxay ka yimaadeen mas-uuliyaddeeda doorasho in la qabto waa ogol lahay doorashada sharciga ah in la qabto unbaa muhiimadana tahay wixii aan taa ahayn ee ka soo baxa maxaanku idhahdaa maxkamadda ka soo baxa wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda waxa qaadaya buu yidhi aadan xaaji cali muuse xaaji cali أنا بيح عبد ما غالو ما شو حقوله فيري دوميها محكمة صار مرك هلك مرك تاجد محل غفلنا دوميوه وحصول صاري ولا يقنع معها مركي كوبا قانكي وهري وصول صاري أها إلا قبل الدورة ururada iyo xisbiyadii qaranka ee saddexdaha iyo ururada soo baxay doorashadoodii in la qabto ayuu horay u soo saaray muddo laga joogo maxaan ku idhahdaa dhowr iyo 10 bilood laga joogo tiyo kale uu soo saaray tiyo hadduu wax kale soo saaro waxa weeye waa wax kale noqonaysaa nin cabsan ayuu noqonayaa meeshana sharci ma yaalo sideedabana arrimaha doorashada maxkamaddu shuqul kuma laha meel ay ka soo geli karto iyo qaab ay u soo geli karto iyo sharci meesha ma yaalo haddayna maxkamaddu shaqo ku lahayn madaxweynaha Somaliland golaha guurtida Somaliland baa fadhiistay xilkii bay u kordhiyeen madaxweynkiisa bay u kordhiyeen war golaha guurtida Saleebaan xukuumad kordhisay soo ma garanay
nimankan xisbiyadu ma ayar doorasho galaan oo ilan xisbigu 10 sano joogo 10 sano ka dhamaatay madaxweynaha xilka loo kordhiyay inta la daba xagxaganayo soo ma aha in la yiraahdo doorashada qabo iyaguna ay tartamaan marka hadday soo baxaan nasiibkood oo madaxtooyaha aadaan hadday soo bixi waayaan ay reerayada kala aadaan adigu heega maxaa la dhahaa heega ma taqaanid miya marti cabdile موجود كلها جيسك جدلي اي فيري ماشي meeshan xaqiiqda taala waxay tahay in labada dhinac marka la fiiriyo nidaamka sharciga inayna u sinayn xisbiyada mucaaradka nidaamka sharciga fadhiya xilka haya sharciga ma kala dabada muuse xilligiisi waa dhamaaday war muuse xilligiisi waa loo kordhiyay kordhintu dee sharci ma aha eg meel ku gaar iyo rasmi weyn kaliya kaba soo qaadba in loo kordhiyey waa acting president weeye ee ma aha madaxweyne awood leh haddii loo kordhiyey fiiri madaxweynuhu muddaxileed buu leeyahay adduunka xil dabada ka furan oo qofku iska joogo oo iska soconaya ma jiraan muddaxileedkii lahaa wuu dhamaystay u kaadiya muddaxileedkii lahaa wuu dhamaystay waa loo kordhiyey soo maaha hadhe markii la kordhiyo awooddii madaxweynuhu totally dhulkay gashay wax heshiisoo caalamiya ma geli karo qodob masiiriya kama hadli karo arrimo doorasho shuqul kuma laha oo uma yeelo waa sharciga adduunka ee dowladda adduunku waa isku sharci horta adduunku isku sharci ma adduunka waa sharci gaar u leeyahay no waxa lagu kala duwan yahay waa qodobo kooban tusaale yaroo kooban baan ku siinaya soomaaliya markay ahayd kumeel gaarka markay ahayd madaxweynaha kumeel gaarka ah iyo kan rasmiga ah isku awood maaha waa dunida oo dhan wey muuse xilligiisii wuu dhamaystay khayr iyo khasaare wixii uu kala kulmayba tan hadda uu ku joogo markii sharci loo raacayo ee nidaam loo raacayo wax awooda uu leeyahay ma ay jirtee boosku yuuna banaanaanin madaxweyne la doortay waxa bedela madaxweyne la doortay intaa uu ku joogaa meesha mooyaane wax kale uu ku joogo maalinta madaxweyne ay Somaliland dooratay shacabkeedu codeeyo waa acting day waradeeygaadi waa matalo ma aha matalo dhigayso maalinta Somaliland ay intay madaxweyne doorato madaxweynahaasi la dhaariyo madaxweynaha xaflad loo qabto xilka lagu wareejiyo la caleema saaro wardaysiida ma wareejin maalintaas waa la oran karaa madaxweyne xilka waa ka dhamaaday musabix laakiin inta taa laga gaarayo madaxweyne musabix isaga Somaliland maamula isaga madaxweynihii Somaliland sharkeeda iyo khayrkeeda isaga leh haddaba saatay maxaa doorasho laga geliyaa marka iska joogayo oo maalinka madaxweyne ma joogayo doorashada lagu qabanayaba ninka ogba inuu isagu meesha joogayo haddaan doorasho la qabanin dee muxuuba doorasho u qaban haddii awooddiisu kaamil u ahaanayso oo intuu rabo maalin walba 2 sano ama sanad loogu darayo oo uu iska fadhiyayo doorashaba qaban mahay balba uu loo kordhin waa sax adduunkuna saa uma shaqeeyadii adduunku sidaad moodayso uma shaqeeyo maya adi laftaada sidaad moodayso uma shaqeeye marka la fiiriyo ma tan muuse waa caadi waa indha cadays baa la yidhahdaa tan waa ogolahay haa indha cadays baa la yidhahdaa iyo ismaqiiq iyo qabow galool gale qasab ku marsii waxa uu meesha ku joogo eg waxaan oo dhan waxa uu wareejinayo hore baan halkan inagoo fadhinaan uga hadalay muuse wuxuu kicinayaa baan ku fida iyo siigo hor buu ka dhex kicinayaa hargeysa tii un baana socota 2 bilood baa hadda laga joogaa waan maraynaya maalin uu khadbeynayo uu lahaa maxaan ku idhahdaa to uu waxyaala akhriyay uu lahaa doorashadii baa la qabanayaa wax walba waa naga diyaar hawl walba waa la dhamaynayaa yani waxaasoo dhan ujeedada iyo danta uu ka lahaa tanun bay ahayd wuxuu geedaha isugu xoqeeyey sida meeshan in la soo gaaray ahayd maxkamadaana u soo saari doonta suu rabay oo codkiisa maxkamaddu markay soo saartana dee waa 2 mid un suu rabay inay noqoto oo ah Somaliland in lagu kala tago oo la isdilo muuse inuu xil wareejiyo nin ku wareejiyo isaga la mida kama go'na wuxuu u arkaa gunnimo tii ugu isaga waa lagu wareejiyo isaga wuxuu u arkaa gunnimo meel loo dhaafa aanay jirin in isagoo muuse biixee inta laga guulaystay uu xilkii iyo madaxtinimadii dalka Somaliland ku wareejiyo muwaadin isaga la mida oo sidiisa oo kale xaq u leh wuxuu u arkaa dhimasho inay ka xigto sidaa daraadeed muuse diyaar uma aha inuu xil wareejiyo umana dagaal waa ku jira oo dagaal buu galay dagaal waxay ka socdaa lascaanood kuma dagaalamayso lascaanood 5 bilood soo gatay maya waa wuxuu isagu wado cid dagaal ku wado oo Somaliland duulaan ku soo ah ma ay jirto way ii garaada madaxweyne dagaal waa ku jira geesta kalena fiiri
muddaxileedkiisi weli ma dhamaanin waa loo kordhiyay dagaalka laascaanood adigu aad sheegayso doorashadiina wuxuu yidhi waan qabane dagaalka laascaanood adigu aad sheegayso maxaan ku idhahdaa to meeshan muuse xaaji caliga warqadda uu u diray maxaan ku idhahdaa to waxan aad ka hadlayso ururadan waxaasi oo dhan waa waxba kama jiraan waa kursiga uun dagaalka kursiga maaragtay yaa weyo dagaalka laascaanood ka socdo waa dagaal kursi maxkamadda sare iyaduna waa qayb dagaalka kursiga ka mida guddiga doorashada waa qayb dagaalka kursiga ka mida wixii kharash ahaa ee la bixinayay waa iyaguna waa qayb ka mida dagaalka kursiga muuse kursigan sifo kasta uu ku xajisan karo uu ku xajisanayaa madaxweyne walba ka go-an no maya fiiri inta meesha hadda kursigan dhiiggale kursigan inta bani aadan u dhimatay daraaddii miyaad ka warqabtaa horta maya inta daraaddii u dhimatay bani aadan miyaad ka warqabtaa noo sheeg ma xisaabi karti mukaa ma xisaabi magaalo aan dhiig oogu daadanin kursiga muuse uu ku fadhiyo ma ay jirto hal magaalo intii uu ku fadhiyey inta horse cid wax ku diri jirta male silaaya ka horreeyey silaaya dhowr wiil buu ku dilay maxaan ku idhahdaa axmed dhagax qola mudaharaadayso ururkoodii buu dhacay ururkii maxaa xaqsoor urur la yihahdaa maaqa laba wiil wax buu ka dilay riyaale isaguna wax qaabla kuma dilin ninkan laakiin ku dabaashay ee haddana dhex bataragsanaya ee welina usii hanuun qaba daadinta dhiigga shacabku waa ninkan wey aad baa umahadsan tahay hadda maxaa marka maxaa lagu kala joogaa markaad waxba laguma kala joogo dole waxaan ihiin soo fuulaya muuse waxa weeyaan okay maxkamadda hadda hawshiisu wataa okay maxkamadda sare hadda hadday tirahdo warka laga sugayo waa in la qabto doorashadii ururada oo ay horeyso madaxtooyadana kadib baa la qabanaya ma ku qancayaan qoladan xisbiyada dee ayay u taallaa kolley waa khasab ama marnaba dhihi maayo dhib geysta iyo waxa sameeya laakiin sidii loogu taliyo inay arkaan baa muhiim ah sababtoo ah hadda cidiba waxba ma weydiinayso wax wada tashi la yidhahdaan jirin wax sharci la yidhahdaan shaqaynaynin jacaylka muuse iyo meel ay ku wada tashadeen intii hadda hawlahan ay taagnaayeen ma ay jirto muusena wuxuu yidhi aniga jacaylkaygaa sharciya aniga nacaybkaygaa sharciya ciddaan jeclahayna waan jeclahay waa dastuuri ciddaan necbahayna waa necbahay waa dastuuri waa cadow cadowga gudaha soo mataqaan cadowga gudaha yaa hogaamiyey noo sheeg yaa hogaamiyey cadowladii gudaha hadda way batay cadow gudaha jira puntlandna cadowga gudaha kasoo baxay soo cadowga gudaha farolaa hogaamiye hogami kuwana cira hogaamiye عريني فرلا عدوية وجاه عدو وجاه نقول والله هذا ما زي هاي جامعة قلت أنت أصلا كسوق جبيني يا بابا كنت مركز كل من دور نص سياسية نقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.